waxaan ilaawi karin sidaad wehel iigu ahayd, sidaad dadka iiga jeclayd, sidaad agtayda u jeclayd, sidaad farxaddayda u jeclayd. anigoo nolosha ka quustay ayaa dib waxaad iigu beertay jacaylkaasoo buuraha iyo baddaba ka weyn. owliya waxaad ayd ruuxa keliya ee dunida nafsadeyda ama qalbigayga jacayl dhaba ku beeray. markii aad ogaatay in aan si dhaba kuu jeclahay, misena aad ogaatay in aan sakin kaa maarmin, ayaad waxaad bilowday jees iyo inaad taleefanka aad igu dhegaysato. waa hubaal aniga waan ku jeclahay, laakiin adiga ma sheegi karo waxa ku helay. haddaan xiise kuu qabin kuma soo xiriirshan, xawalayda dumarkana adaan ka xigsadaye kumaan xoori karaayo macaan. galgacayl xaddaafiyo xirmaan kaa sugaayay, ma waxaad jeclaysatay nafsadayda in aad ku beerto cuqdad iyo ciil. ogow xanuunka hadduu maanta aniga igu horeeya beri waa uu kugu dambeeyaa, laakiinse aniga dhibtaan kuguma fiirsan doona. laakiin hal mid ii ogolow in aan ku iraahdo, midaasoo ah waxaad ahayd waqti keliya noloshayda mugdiga ka saaray. ii ogow qalbigayga in aad ka degan tahay boos aan ruux kale kula degi doonin, xitaa haddii aan ruux kale guursado. waan ku jeclahay, weligay waan ku jeclaan doonaa, balse waxaan ku leeyahay sida aad ii gashay ruux kaloo dunidan saaran ha u gelin, waayo dadka isku mid maahan. aniga jacaylkan baaxadda weyn sida aan qalbigayga kaga tiraba waan ka tiri doonaa, laakiin ii ogow inaad dadka adiga iigu sarrayso. waxaan ku leeyahay dhigaa ugu sharaf badnow. si ay kuu soo gaaraan